mas-uuliyiinta madaxda ka ah tubaha qaranka iyo howlwadeeno kale oo uu hogaaminayo wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud magaalada Baydhabo uga qayb galay shirka golaha wasiirada Koonfur Galbeed. Shirka oo uu gudoomiyay madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa lagu soo bandhigay halbeegyada tubaha qaranka iyo hanaanka tubaha ay u shaqeeyaan iyadoo si qoto dheer looga dooday hanaanka wasaaradda welibana ay uga qaadan karto qaybta uga aadan. wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud ayaa kulanka kadib sheegay muhiimadda shirka ay ahayd in golaha wasiirada Koonfur Galbeed xog laga siiyo tubaha qaranka si ay qaybtooda uga qaataan, isagoo cadeeyay dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka laga qaybgelin doono dhaqangelinta halbeegyada tubaha qaranka. waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo nagu casumay golihiisa wasiirada shirkoodii khamiislaha ahaa oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayna tahay mid aan hore ugu ballanay madaxweynaha markuu xilka la wareegayay markaan imid Baydhabo inuu aad u daneynay rabayna inuu wasiiradiisa cusub ay la jaan qaadaan dowladda federaalka iyo sidaan u shaqeyno xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qaasatan tubaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka shaqeeyo. annagana waanu ka aqbalnay. maanta waxaan la imid dhowr toban qof oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socdo oo u badan dadka ay hormuudka ka ahaa daadejinta iyo ka shaqeynta tubaha Soomaaliyeed oon rabnay hadda in loo daadejiyo dhammaan maamul goboleedyada si ay ajandada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay mid u noqdaan, maadaama annaga aan u shaqeynayno horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay wadanka Soomaaliyeed. dowlad goboleedkana ay yihiin qaar ka mid ah maamulkaas. waxaan isla istusay in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu si xoogan ula shaqeeyo dhammaan maamul goboleedyada si arrimaha aan ka shaqeyno iyo daadejinta tubaha Soomaaliyeed, tubaha afarta tubood aan ka shaqeyno inay loo daadejiyo dowlad goboleedyada. marka aad aan ugu faraxsanahay dhammaan wasiiradana qayb wax ay ka qaateen, doodana way fiicneed. marka waxaan leenahay kusoo dhawaada, annagana waxaan diyaar u leenahay hadda iyo berribta inaan la shaqeyno dowladdan iyo goboleedkan iyo kuwa kaleba xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed.